kuguma filna keliya kabashada ugu horeysa biyaha xilliga afurka. qadarka biyaha aad cabto afurka amaba suxuurta kadib wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dheelitirka iyo ilaalinta caafimaadka jirkaaga. inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa laga maarmaan ah inaad cabto ama aad qaadato biyo badan, maxaa yeelay saacado badan ayaa waxaa ku sugneed xaalad haraaga. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo cabista biyaha bisha barakeysan ee Ramadaan. sidoo kale waxaan uga hadli doonaa haddii uu qofka uu cabi waayo biyo ku filan muxuu ka dhaxli karaa, maxaa cudur ah oo qofkaas uu ka dhaxli karaa biyo la'aanta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. haddaba intaan u gudagelin Ramadaanka fadligiisa waxaan kaa codsanahay in aad muuqaalka sheer garayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale page-ka follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta oo aad la jeceshaa in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan. muuqaalkana laag badan si uu dad badan u gaaro. mahadsan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. bacda salaan. ramadaanul kariim dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba aad dunida ka joogta. weli waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan. ilaahay ha naga dhigo kuwa cibaadadooda laga aqbalo oo lagu dambi dhaafo. kusoo dhawaada barnaamijka cuntada iyo caafimaadka oo aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. qofka saacadaha badan soonnaa waxaa laga maarmaan ah inuu cabo biyo badan si ay u kaabaan dareeraha jirka maadaama saacado badan oo ku sugnaa xaalad haraad ah. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo biyaha xilliga afurka ama suxuurta kadib. qodobka ugu horeeyo, biyuhu waxay ka hortagaan calool xanuunka ama calool xiranka ama calool istaagga hadba sidaa u taqaanid. sidoo kale waxay dheefshiidka ka dhigaan mid caafimaad qaba oo si habsami leh u guta shaqada dheefshiidka. qodobka labaad, biyuhu waxay ka qayb qaataan dheelitirka dheecaanada jirka. dheecaanada jirka ugu muhiimsan ee laga sameeyo biyuhu waxay ka qayb qaataan dheefshiidka sida nuugista cuntada, wareegga dhiigga, xambaaridda walxaha kiimikaalka iyo nafaqada, sameynta caliyada iyo isku dheelitirta heerkulka jirka. qodobka saddexaad, biyuhu waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka. qodobka afaraad, biyuhu la cabo xilliyada afurka ama suxuurta kadib waxay jirka ka caawiyaan in ay nadiifiyaan dheefshiidka iyo xubnaha kale jirka iyagoo biyahaas u saaraya si noocyada kala duwan sida kaadida, dhididka iyo saxarada. qodobka shanaad, biyuhu waxay dhisaan murqaha iyo unugyada murqaha si shaqadooda ay u gutaan si habsami leh. qodobka lixaad, biyuhu waxay caawiyaan shaqada keliyaha oo waxay jirka ka saaraan wasaqda iyo waxyaabaha kale kiimikada ee jirka ku jira iyagoo u saarayo kaadi ahaan ama dhidid ahaan. qodobka toddobaad, biyuhu la cabo afurka ama suxuurta kadib waxay ka hortagaan korqaleelka iyo dhibaatooyinka ka dhasha sida jeexjeexa cirbaha iyo duuduubka ku yimaada wejiga. oo qofka haddii uu biyo badan oo cabo, biyuhu waxay ka hortagayaan guud ahaan korqaleelka iyo dhibaatooyinka kale ka dhasha oo aan soo magacaabay. su-aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ka dhalan karo qofka haddii uusan cabin ama uu cabi waayo biyo ku filan afurka ama suxuurta kadib. dhibaatooyin caafimaad oo badan ayaa ka dhalan karto haddii uu qofka ka gaabiyo cabista biyaha bisha barakeysan ee Ramadaan. runtii dhibaatooyinkaas halkan kuma soo koobi karo, balse waxaa ka mid ah tabardari guud ee ku imaado qofkiyo tabartiisu yaraato gaar ahaan maalintii xilliyada uu sooman yahay. qodobka labaad, haddii uu qofka ka gaabiyo cabista biyaha waxaa ku imaan karo calool xiran ama calool istaag ama in calooshii ay socon weyso. qodobka saddexaad, qofka haddii uu ka gaabiyo cabista biyaha qofka waxaa ku imaan kara cudurro badan sida cudurrada ku dhaca kelyaha iyo kaadi heesta. sidoo kale qodobka afaraad, haddii uu qofka ka gaabiyo cabista biyaha xilliyada soonka qofka waxaa ku imaan kara ama ku imaan doono korqaleel iyo dhibaatooyin ka dhasha korqaleelka sida jeexjeex ku yimaada cirbaha iyo dibnaha. sidoo kale qofka waxaa ku yimaado qaleel guud ee ku yimaada jirkiisa iyo in
haragga ama maqaarka oo duuduub kaga yimaado, iyo xaalado kale oo badan oo aan halkan kusoo koobi karin maadaama waqtigu uu igu yaryahay oo ay xili hafurtii ay soo dhowdahay. balse waa halis qofka haddii uu qaadan waayo ama uu ka gaabiyo cabista biyaha wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin caafimaad oo badan oo aan halkan kusoo koobi karin. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka sheer garayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ugu faa'iidaystaan. sidoo kale xagga hoose ka bax qaar ka mid ah asxaabta aad la jeceshaa in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan. muuqaalkana laag badan si uu dad badan u gaaro. intaas yaan kusoo gabagabeynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.